ardayda laabtoonaadka imtixaanaadka galaya jaamacadaha inay u gudbaan ay tahay 16 kun oo xirliman ay yihiin kuwaasina xoog saarno qaabka imtixaanku gali lahayn waa midaan deegaanka dhan la qabnaa waa wadanka dhan la qabnaa wasaaradda waxbarashada iyo madaxa xafiisyada waxbarashada deegaanadu wada hadal joogta duruufta imtixaanka lagu qaban lahaa aan kaga jirno kow waxa iska cad xilliga loogu talagalay imtixaanka inaan la gali karayn duruufta talo ardaygu semesterka la soo dhaafo dhan class-ku ma jiro marka isagoon ardayga class-ka gal source-yadan kale intee TV idaacad iyo wuxuu akhrin karaa akhrinayo imtixaanka toos ma u gelinaa mise waxaan la sugnaa in imtixaanka marka duruuftan caafimaad iyo isbedel ka yimaado qadar bil 2 bilood ha noqoto oo loo summarize garaynayo waxbarashada semesterku ku dhigan la arday inta class ku soo celino marka kadib imtixaanka aan galino waa kow option kan dambe inta badan xoog badan in time kan ku soo celino bil ha noqoto 2 bilood ha noqoto ardayda ay class ku soo noqdaan markay xaaladdu isbedesho labo habka imtixaanaadkan wax laga bedelo qaabka loo galayo class uu ka duwan yahay laakiin sideedaadka oo kale inuu ka bedelo 12aadka oo kale inta qaabka loo galayo habkii in la formulate garaya lagu jira hadda aan ku wada jirnaa markasta discussion baan sameynaa week kasta on kulama yeelana conference ahaan aan soo nimaadnaa inaan ka wada hadalno qaabka imtixaanaadka ugu fudud ardayda ay ku gali karaan laakiin taxqiiqda waxa weeye inaan ku dadaalo ardayga sanadka 12aadka ahaa inaan xaqiijin karno 2013 inuu jaamacad u gudbi karayo way kasto imtixaanku ku galaba online ha ku galo warqada ha ku galo sida xooga badan online baan ka fikiraynaa online markaan leenahay waa in strategically ardaygu wuxuu qaabka u gali lahaa agabka diyaar u yahay wuxuu u baahnaa salahan geesta kale waxa uu ka dhawaajiyay kalsoonida ay ku qabaan in ardayda deegaanka Soomaalidu u fadhiistay imtixaanka shahaadiga ah xilli aanay waxbarashada sidii tooska ahaanay u helin gurigooda joogay ogaadaan marka dugsiyadii gaarka loo lahaa jiritaankooda inaan ilaalino oo inayna burburin dhaqaale darro dartood xanuunka dartii macallimiintiin inay mushaar waayeen dhinaca kalena ardaydii inaan meel cidla lagu sidayno oo kale inay socoto guud ahaan waxbarashada deegaanku taa weeye waxaan ku rajaynahay isbedelka guud ahaan deegaanka ka dhacaya dalkaba waxbarashada isbedelka inuu wax weyn u kordhiyay baan aaminsanahay sektorka waxbarashadu ma leeyahin mushkiladii waxbarashada la xaliyay laakiin waxaan isleeyahay waxbarashada mushkiladii jidkii lagu xalin lahaa ayaa cagta la saaray accesska markay timaado iyo tayada markay timaado wuxuu ogeynaan saarna mustaqbalka insha Allah annaga iyo maamulada degmooyinka iyo gobolada inta badan iska shanayno ahmiyadii loo baahnaa waxbarashada la siiyo